kusoo dhawaada maalinta labaad iyo Somali STEM Summit presentation kan diibayo waxay ahayd Eve milyan inay dhibto laakiin nasiib darro way ka soo qayb gali weysay qurbaha markii la joogo aad ay u adag tahay inuu qof ka helo fellowship marka fellowshipka waxay siiyay Faculty for the Future Islam Bashay Foundation runtii meeshii aniga runtii isoo kabciyay barisay science when it comes to STEM iyo haween markii la dhaho reer galbeedka runtii dadka leading foundationada ahay ayay ku jiraan alumni-ga oo waxaan ahay faculty-ga haddana waxaan ahaa ambassador-ka Soomaaliya waxaa runtii igu dhiirigeliyay inaan dib u soo laabto oo STEM ka abuuro Soomaaliya ayaga ayay ahaayeen So from the bottom of my heart, way maqan yihiin laakiin waxaan rabi lahaa inaan ku dhaho thank you so much. Marka haddii aan warbixin yar idinka siiyo foundation-ka iyo siday u bilowdeen, sorry. Okay, yeah. Foundation-ka runtii or the company-ga Islam Bashay 100 sano ka hor ayaa la bilaabay. waxaana leh family Francis ah runtii waxay aad ugu dadaalaan science and innovation fieldiyo kala duwan in science oo haddii noqoto oil and gas laakiin engineering iyo waxyaabahaas ay xoogga saaraan aad iyo aadna waxay ugu dadaaleen runtii in ay caawiyaan women in STEM oo ayagoo runtii xoogga saarayaan haweenka ka yimaadeen wadamada soo korayaan nacam markii la dhaho women in science aan fiirino daatada sida u jeedin graafkaas dhinaca sare waxa ah ragga dhinaca hoosena waxa ah dumarka raggi ayaa nooga badan dhinaca shaqo la'aan haddii la dhahana ayaga way nooga badan yihiin laakiin dumarka aad bay ugu liitaan STEM That's why aan u suubinay STEM Sisters Initiative oo Somali women and girls in science, technology, engineering and mathematics in lagu caawiyo through Somali STEM Society. Bari ayaa faahfaahintooda maqli doontiin hadduu alla idmo waa meel ay ka helayaan mentorship, coaching iyo scholarships iyo tababaro. So looking back waxaa la bilaabay in la caawiyo dumarka wadamada soo kobcayaan 2004kii nasiib wanaag badse aniga ahaantayda aan dhaho nasiib darro qofka keliya oo maanta la dhihi karo in terms of foundation-ka uu ka faa'iiday waa aniga oo keliya marka Joyce baan lahaa way ila yaabanayeen you know after hundreds of thousands of applicants qofka kaliya ku soo baxo markaan ku soo waxbarashadii aan dhameeyay wadanka ku soo laabtay balan waxaan qaaday in aan gabdho kale tood soo saaro haddana shirkan waxaad u jeedin gabdho badan oo STEM Sisters ka socdo oo ka qayb qaadanayo now fursadaha aan runtii ay foundation-ka ay hayso waa PhD and postgraduates waxay hayaan oo kale want to face jaamacadaha waaweyn oo adduunka ayay la shaqeeyaan sida Cambridge, Oxford and Harvard University waa hundreds of university over 300 university ayaan dadka fellowship-ka ka faa'iideysteen ayay ka shaqeeyaan runtii hadda si fiican u fiirisiin Cambridge University baan joognaa I think it was 2011 or 10 bay ahayd wadan kala duwan ayay gabdhaha ka kala yimaadeen xooga waxa la saarayana wax kala ma ahan being part of community oo ku caawinayo oo resources kala duwan leh waxa jiro again kan waan hore waa u sharxay over 807 follow iyo alumni ayaa jiraan oo runtii wadamada kala duwan ka yimaadeen 300 home universities ayaa laga support gareeyaa waxaan rabaa
inshallah, for the next 5 years, 100 Somali girls or scholarship can ka faa'iideysanayo. Del maahan waa $50,000 per year ayay gabdhaha qaadanayaan. You see? So wax oo easy maahan, waa runtii lacag fara badan. Not only lacag, mentorship baad helaysaa, community baad helaysaa, fursado kale oo kala duwan ayaa jiraan. Marka waxaan rabnaa inshallah through Somali STEM Sisters Initiative in gabdhaha Soomaaliyeed rabaan inay ku takhasusaan STEM ay ka faa'iideysan karaan soona dalbadaan. Annagana halkan baan u joognaa, informationada waa diyaar. Fadlan lana soo xiriira, iskuna diyaariya inaan naqatiin leading innovation, leading ma arkin oo STEM hadday naqato hadduu alla idmo.